gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cur ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka waddan iyo waftigii uu hogaaminayay ayaa maanta waxay kala qayb galeen magaalada Bristol taageerayaasha xisbiga waddan iyo waliba dadka reer Soomaaliland xaflad ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen dadka reer Bristol ee Soomaaliland xafladaas oo ay soo baxu dhaafiyeen dad aad u fara badan ayaa waliba waxa lagu gudoonsiyay shahaadooyin xildhibaanadii la socday gudoomiyaha golaha wakiilada ee lagu tilmaamay yihiin kuwa si weyn uga shaqeeya Soomaaliland marka hore waxaan halkan uga mahadnaqaynaa dhammaan martida sharafta leh ee ka soo qayb gashay xafladan rag iyo dumarba sidoo Axmed Naasir sheegay waxa uu nagu soo wareejiyay mikrofoonka markaa sidii caadada ahayd waxaanu ku bilaaban doonaa aayadaha quraanka markaa waxaan u yeerayaa Sheekh Saleebaan Maxamuud Maxamed إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير لكم وأحسن تاويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا waxaan ku soo dhaweynayaa odayaasha magaalada Bristol oo ugu horeeyo oday kamid ah odayaasha ahna xubin xusbiga ama odayaasha xusbiga wadani laf dhabarta laanta Bristol Xasan Haarun ku soo dhawo anigoo ku hadlaya magaca odayaasha magaalada Bristol iyo magaca xisbiga labadaba waxa aan soo dhaweynayaa wafdigan heerka sare ah ee qiimaha badan leh ee ayna soo sharfay ee waqtigoodii inoo huray ee inoo yimi oo hogaaminayo ra'iisul baarlamaanka Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani insha Allah una noqon doona madaxweynaha mustaqbalka Mr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo wafdiga la socota oo aad iyo aad wafdi u qiimo badana oo ay kamid yihiin xildhibaanadii Soomaaliland iyo siyaasiyiintii xisbiga wadani anigoo aan magacyada dusha ka wada sheegahaynin waxaan idinku soo dhaweynayaa magaalada Bristol aniga oo wakiil ka ah inta maqan ee reer Bristol ee waqtigu raabay iyo inta fadhiday intaba kuna hadlaya magacooda waxaan idin leeyahay soo dhawaada si aad u heer sareysa ayaanu idin soo dhaweynaynaa waxaanu kale oo aad iyo aad idinka mahadnaqaynaa waqtigiina aad noo hurteen ee aad soo sharafteen oo noo timaadeen insha Allah waanana waqtigiina iyo haddaba waanu idin daba taagnaanaynaa waa idin hor soconaynaa waanaanu idin la jirnaa annagoo ah odayaasha xisbiga iyo xubnahoodaba waxaan markaa leeyahay ku soo dhawaada magaalada Bristol rag iyo haween annagoo isku duuban ku soo dhawaada si heer sare ah si sharaf leh waxaan kaloo iyagana halkan ku soo dhaweynayaa councilorska Bristol oo ah kuwii aynu dooranay ee councilorkeena ahaa oo iyaguna runtii aad inoo soo qiimeeyay waayo qofku markaad leedahay arrin ee uu ku soo qiimeeyo waxa uu ku tusayaa inuu ku ogol yahay ama ku dhagan nugul yahay innagana waxa la inaga rabaa maalinta inoo baahan yihiin inaynu u dhagan nuglaano fariin kasta oo ka timaada councilka Bristol markaa waxaan leeyahay aad iyo aad u soo dhawaada waydu soo dhaweynaynaa aad iyo aadna waanu idinku soo dhawaanaynaa waana intii hore aad baan idinku soo dhawaanaynaa waxaan u yeerayaa imika odaysna ka mid ah odayaasha magaalada Muumin salaanka bacdi gudoomiye musharax madaxweyne waa noo caado taanu nahay reer Bristol inaanu jeclaano madaxdayada leano madaxdu xisbi gooniye mara magaalo gooniina marahe qaranka reer Soomaaliland oo dhan baale annaguna qaranka reer Soomaaliland baanu nahay sidaa darteed
waxaanu nahay shacbiga reer somalilan sidaa darteed inaanu madaxdayada jeclaanaa aada iyo aad bay dee u fiican tahay waana nagu waajib salaan ka bacdi runaantii caawo oo kale waa caawo aada u fiican xafladdan sharafta leh ee dadkii soo qabanqaabiyey jasaa allaha ka siiyey ay sidan u bileen aananu uga mahadnaqayno haddaanu reer bristol nahay xilkaa ay naga furteen sababtoo xilku wuuna wada saaraa yar iyo weyn rag iyo dumar dhammaantayo inaanu madaxda dee soo dhaweynteeda ka qayb galo hase haddee kolleyba inunbaa qabatee intii naga furatay iyagana waanu u mahadnaqaynaa waxaan leeyahay caawo kale dabcan waa caawo aynu ku nool nahay caawo kale waa caawo aynu ku nool nahay dareenka iyo farxadda reer somalilan waa caawo madaxdeennii nala joogto waa caawo xiise gooniya inoo leh sidaa awgeed farxadda runtii aad idinkoona soo booqday haddii aad noo suurto geliseen iyadana waanu idinka mahad celinaynaa u yeedhayaa iminka cabdi diiriye kusoo dhawow cabdi waxaan halkan ku soo dhawaynayaa guddoomiyaha baarlamanka isla markaana guddoomiyaha xusbiga waddani marka saddexaadna murashaxa madaxweynaha somalilan ee mustaqbalka insha allah waxaan soo dhawaynayaa xildhibaanada marti sharafka leh odayaasha oday dhaqameedada iyo dhammaan dadka somaliland caawa halkan isugu yimi waxay la tahay waa markii labaad ee xusbiga waddani aan xafladda leeyahay ka soo qayb galo cabdiraxmaan markaa hargeysa muu joogin ismaanu arag laakiin waanu saragnay qoladanka horeanu dee xaflad uga soo wada qayb gallay waxaa markaa aada noogu sharaf leh dadka had iyo goor martiqaadka ee xusbigan oo xagga iyaga aada uga mudan oo had iyo gooraale xidhiidh fiican aanu leenahay mid saaxiibtinimo ah iyo mid waalanimoba waxaynu iminka u yeedhi doonaa xagga guddoomiyaha xusbiga waddani laantiisa bristol mustafe axmed ige mustafe ciyow kusoo dhawow salaan ka bacdi waxaan u malaynayaa sidii hore dad horeba uga dhawaajiyeen bristol oo dad isku duubana oo runtii jaaliyad jecel dadkooda had iyo jeer iyo mas-uuliyiintooda iyo madaxdoodaba afkoodana aan ku hadlaayo mar labaad waxaanu soo dhaweynaynaa guddoomiyaha ra-iisal baarlamanka cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ahna guddoomiyaha xisbiga waddani ahna fuyuujarka iyo madaxweynaha mustaqbalka somalilan insha allah kolley salaantaa ka bacdi haddaan ka gudbo bristol ahaan dadkii madashan soo agaasimay quruxda badan leh ee ka soo shaqeeyey dhammaantood iyagana waanu mahadnaqaynaa iyo intii wakhtigooda qaaliga ahayd u hurtay inay halkan yimaadaan wafdigoodana soo dhaweeyaan waxaan u malaynayaa wax badan laygama fadhiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abaadir kusoo dhawow mudane marwooyin marti sharafka dhammaantiin iyo madaxdan inooga timid somalilan ee uu horeeyo guddoomiyaha baarlamanka somalilan ahna guddoomiyaha xisbiga waddani iyo xildhibaanada ka socda baarlamaanka somalilan aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin wax kaloo ma kicin waxa aan idinku yeedhayaa anigoo u horreysiinaya marka ugu horreysa hibaaq jaamac oo aa wada taqaaniin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta marka ugu horeysa waan idin soo wada salaamayaa dhammaan wixiina maanta halkan nagala soo qayb galay xafladan aad iyo aada u qurux badan waxaan magaalada bristol aan kusoo dhaweynayaa marka ugu horeysa ibraahim jaamac waxaan kusoo dhaweynayaa cabdiraxmaan maxamed naasir xaaji cali shiine iyo axmed xuseen haddaanaydin bristol hore u iman iyo haddaydin dib ugu soo noqonaysiinba waxaan rajaynayaa ina aniga iyo ummadda soomaaliyeed ee bristol maanta inay si fiican kuu soo dhaweeyaan welcome sanad baa kasoo wareegay maalintii aydin idoorateen marka ugu horeysa ummadda bristol ee soomaaliyeed ee sharafta leh weliba khaasatan dumarka waxaan doonayaa inaan idhaahdo aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin kambeynkaad ila soo gasheen
waxyaabo fara badan oo fiicanna waynu soo aragnay sanadkan waxaynu aragnay madaxtooyinka magaalada Bristol ee Ingiriis oo Somaliland iyo siyaasiyadda Somaliland iyo dhibaatada dadka Soomaaliyeed magaalada Bristol ka haysata inay u soo joogsadeen ayaynu aragnay inaynu xafladaheena iyo meelahaynu isugu nimaadno inay yimaadaan oo ay sharfaan ayaynu aragnay taasuna waa mid ilaahay loogu mahadnaqo waana mid inaku aynu samaysanay Ingiriiska ku mahmaaha xaqaaga intuu albaabkaaga qof kuugu yimaado oo kuugu qaraaco ku siin maayo ku odhan maayo hoo waatana waa xaqaaga adigu inta tagtid waa inaad doonataa oo aad u dagaaltantaa waanayna u dagaaltanay marka haddana waxaan doonayaa inaan idin idhaahdo hambalyo waxaan ku darayaa dadkan kusoo dhaweynaya magaalada Bristol The Right Honourable Gentleman ayaanu af Ingiriis ku nidhaahnaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi welcome waxaan idinku soo dhaweynayaa dadkii igala soo qayb galay maanta xafladan oo aan idiin sheegaya inay ka wada yimaadaan xisbiga la yiraahdo Labour Party-ga ee aan u malaynaya inaydu si fiican u taqaaniin welcome if you'd like to come up and join me waxa ugu horeysa Claire Moody waxa weeyaan Labour Party-gii candidate-kii isu sharaxaysay European Union-ka oo insha Allah election-ku uu yahay 22 May. And thank you very much for the invitation to join you this evening as well. And it's sorry, work the microphones. It's a privilege to be here. And it is also actually a huge privilege because I know you have your general election next year, and recognising the honour that recognising the value that you put on voting and the importance that you give to voting and the fairness and freedom with which you vote as well is hugely significant. As Hibak mentioned, I'm standing in the European elections on May 22nd this year. But once again, I just wanted to say thank you. I want to wish you very best of luck with your elections next year. And I look forward to speaking to you again in the future. Thank you very much. Waxaan ku soo dhaweynayaa Eileen Weens. Hello, and once again, thank you. It is a great privilege and an honour to be here and to be speaking to you. But Bristol, as many as you know, is a city of sanctuary, and it is appreciative of the contribution you all make to the life of this city. The contribution of the Somali community is growing and becoming more influential. Of course, we have Hibak as a councillor already. We hope that actually in due time and in course, more of you will come and, as we were saying, stand and participate in our democratic systems as well as those of Somaliland, because these are the principles that we share. As was said, one person, one vote. So come on, make a difference to our community. You already are. You're founding businesses, you're running businesses, you're contributing so positively to the life of our community here in Bristol. So please, long may it grow and long may it continue. And thanks to every one of you. Waxaan ku soo dhaweynayaa Naomi Ryland. Thank you for inviting me here today and welcome to Bristol. I think we all recognise that the peace and stability that fair elections bring is something that we should not take for granted. And I applaud the people of Somaliland for what they have fought hard for and extend to you the hand of solidarity and blessings in the continued struggle for international recognition. Shortly, you'll be offered the chance to vote in the local and European elections here in Bristol, and I implore you to ensure that your community's voice is heard loud and clear. Thank you.
Sean Cabot. I'm the youth officer for the Labour Party in the south of Bristol, and also separate to that, I'm the deputy chair of Bristol Youth Council. So what I spend a lot of my time doing is trying to sort of engage young people in politics. And if I could sort of manage to engage young people in politics as well as a lot of people from Somaliland are engaged in politics, I think that'd be really, really helpful actually, because I think you've got a really positive outlook, as has been said by my colleagues, on democracy, and democracy is something that's so important. I think your attitude to it is an example not just to other countries, but to the whole world in many ways. And so I think, and the way you've been getting involved, in Bristol, of course, with the election of Hibak, and that was really fantastic. I just really hope it continues. And again, thank you very much. I'm Sue Marston. I'm the Labour candidate in St George West in the forthcoming election. Thank you very much for inviting me, and it's an honour to be here. It's great that free and democratic elections have been recognised in Somaliland by the UN. We know the importance that you in Somaliland hold political freedom and stability in your hearts. We too support those values, and with that message I would urge all of you to remind and encourage everyone in the Somaliland Bristol community to go out and exercise their right to vote on May the 22nd. And I'd like to wish all the candidates good luck in the forthcoming Somaliland election. بعد السلام أنا كو هادلايا قربك هوينك حسبك وطني مقالة بريستول waxaan ku soo dhaweynayaa wafdidan ballaaran ee qaayaha leh ee inooga yimi Somaliland ee uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi xildhibaanada madaxda kale ee xisbiga wadani ee ka kala timi wadanka UK aad baan idinku soo dhaweynayaa nagula soo dhawaada xafladan ballaaran magaalada Bristol. Welcome. mudaniyo marwooyinba waa mahadsantihiin. waxaan si gaar ah u salaamayaa wafdigan sharafta leh ee inooga yimi dalkeennii Somaliland ee uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna madaxweynaha mustaqbalka dhow mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. waxaa kaloon salaamayaa mudanayaashan baarlamaanka ee la socda iyagoo ah kuwa had iyo jeer u daacada wixii loo soo doortay ee ka hadla ee miidiyaha ah ku aragteen iyo telefishinadaba inay sheegaan oo ay ka turjumaan dadkii soo doortay waxay u baahan yihiin had iyo jeer. waxa kale oo aan iyagana soo dhaweynayaa martidan badan ee ah meelaha kala duwan ee inooga yimi magaalooyinka kale ee iyaguna ah madaxdii wadani iyaguna waxaan leeyahay welcome to Bristol. waxa kale oo aan u mahadnaqayaa dhammaanba howlwadanadii ka qayb galay madashan sharafta leh ee sida wanaagsan loo soo agaasimay iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. afhayeenka golaha dhexe ee xisbiga wadani laantiisa Bristol Axmed Maxamed Faarax Gurey ku soo dhawow Gurey. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. waxaan salaamayaa gudoomiyaha golaha baarlamaanka ahna gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo wafdiga culus ee golaha baarlamaanka ee la socda. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. waxaan leeyahay welcome Bristol ku soo dhawaada. intaa kadib waxaan kaloo salaamayaa iyagana dhammaan marti sharafkan isugu yimi madashan wanaagsan ee sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladan iyada caawa. iyagana waan salaamayaa. waxaan kaloo salaamayaa ama aan u mahadnaqayaa dadkii soo qabanqaabiyey xafladan caawa aynu fadhino madashan quruxda badan dhalinyaradii ilmihi hablaabaa lahaa ee soo qabanqaabiyey iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan filayaa wax kaloo dee la is yidhaahdaa ma jiro caawa.
waxaa inagu socdo waqti guddoomiyihii iyo xildhibaanadii la socday iyo waftigan culus ee halkan inoo fadhiyaaba dee inagu inaga sugayaa waqti inay hadlaan oo waxayna odhanayeen inay yidhaahdaan marka intaasaan kaga baxayaa waxaan kusoo dhaweynayaa mikrofoonka Aydiid kusoo dhawow Aydiid waxaanu aad iyo aad idiin soo dhaweynaynaa haddaanu reer Bristol taasi waxaanu kala hadlayaa guddoomiyaha xusbigan ayaan aad uga salaamayaa waxaanu ka hadli doonaa taasi noo horeysaa waxa weeye ta xusbiga aad maahee ta Somaliland aad u hayso ayaanu aad iyo aad kugu salaamayna xilka aad u haysid arrimuhu waa kala qaadan yihiin ta xusbiga mar gaaraynu gelaynaa inta xusbiga anigu caawa ayaan xusbiga soo galay I'm the member markeedana waan ka hadlayaa markeedana waan ka hadli doonaa aniga anaa cadaysay aniga reerkan ka dhashay waa ka mid baanu nahay sidaan balaan garaynayna haddii alla yidhaa haddii ay noo hirgasho ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay meel wanaagsan noogu dhammaato wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaan u yeedhayaa iminkana mahdi aw cabdi dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa marti sharafka meel dheer inooga timiday waxaa kaloo salaamayaa dhammaan dadka halkan marti sharafka iskugu timiday oon leeyahay anoo ku hadlaya afka salaadiinta UK ku soo dhawow guddoomiye dalkan UK annagoo gacmo furan kugu soo dhaweynayna waa guddoomiye fara badan marka dhinac walba waan ka soo dhaweynaynaa guddoomiyaha waxaan leenahay sharaf ayay noo tahay maxay ahayd adoo noogu yimid magaalada Bristol dadka reer Bristol oo weligoodba isku duuban si gacmo furan dadka u soo wada dhaweeya waxaan ku leenahay adiga waftigaaguba ku soo dhawaada mar labaad أنا هذا الكثير ديرينين سونا جبينايا وحان له هاي دمان دتك إنه جاي مادة دبدة أنو كأرسلنا أما أنو كدوك سنو إن أي نوجا ورمان حالة ضدلك إنه كسجن هاي وأنو جعل هاي إن أي أنت إن كبدن كل بنوجو يمادان سببته ألو sababtoo ah waxa weeye annagu waxaan nahay dad qurba jooga u baahan warbixin u baahan dhinac walba macaarad iyo maxaafadba inay noo yimaadaan waanu ku faraxsannahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u yeedhayaa iminka guddoomiyaha UK ee xisbiga wadani maxamed cabdilaahi naahi xafladda loo soo dhaweynteedu waxay tahay wafdiga nooga yimi Somaliland uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka Somaliland ana guddoomiyaha xisbiga wadani mucaaradka ana insha Allah madaxweynaha mustaqbalka ilaahay hadduu nafta noo daayo maxamed cabdilaahi cirro waxa la socdo wafdiga culus xildhibaanaha dhammaantood waxaan leeyahay kusoo dhawaada UK xalatu Sheffield baan joognay caawana waa Bristol jaaladii Somaliland weyn la joogaan kusoo dhawaada gacmo furan inta haddaan dhaafo ilaahay baa mahad leh xalatu Sheffield baan joognay ayaamahan baan joognay waxa Sheffield noo furtay albaab weyn اعتراف رادسكيني سومالان دولدان كسوغني aad baa looga sugay waqtiga 12 sano 13 laga sugayay maanta waxaan ogaanay in codkeennii aan ku lahayn degmo kastaan deganahay in maanta wax ku soo qaadi karno Bristol maanta miraheedii ka hayeen intii halkaan la joogtay waa foodkeennii inaan baalkaani soo gashay oo maanta miraheeda darkayseen nin noqotay counselor oo hawlihiina iyo voice-kiina u gudbinaysa councilkay ka bitahay waxa lagu keenay waa vote-kad gasheen iyo petition-kad gasheen intaad support garayseen
shaafiil uma malay councilor somaliland ku jiro councilor somaliland kuma jiro barnaamij bay noo iftiimiyeen barnaamijkaa noo iftiimiyeen xil baa ka saaran any somalilander degan UK xilka saaran muxuu yahay waa foodkiisa foodka haddaanu soo ururino maanta insha allahu tacaala dadkii waxay naga rabaan bisha 22 waa ogtii devote baa dhacaya inaan u campaign garayno aan unit u noqono waxaan doonina hadafkan doonina maanta ka soo miro dhalino skillski waan ogaanay maanta dariiqi loo marayay waan ogaanay marka waxaa loo baahan yahay unity sida aad isu aabaabasheen aad inantaa soo saarteen sanadkii dhaweyd baa la doonayaa xilkii mar labaad inaan gacanta isqabsanno oo councilkiina hadday noqoto Bristol in loola tago baatan interpretation weeyaan sax bay ahayd inantu Soomaaliya oo dhan bay u joogtaa laakiin adaa ka dalbanaya codka doonaysid iyo hadafka doonaysid adaa ka dalbanaya marka petition keeni maanta waa fahamnay doorkii roolkii intaasan joognay UK way noo soo dhawaatay maanta hadafkeeni waa noo soo dhawaaday pressure bay sameynaysaa councilorka say degmo kasta markay qaado MPgeedu qaado oo Westminster geeyo wax badan bay ka bedelaysaa siyaasadda guud ee Somaliland waxaan u yeedhayaa imikana gudoomiyaha xisbiga ucud mustafa waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin mudanihi marwooyinba salaanta islaamka oo leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad waxaan salaamayaa gudoomiyaha baarlamanka cabdiraxmaan isla markaana ah gudoomiyaha xisbiga wadani xubnaha baarlamaanka ka socda ee ka yimid Somaliland iyagana waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka dambe waxaan leeyahay madaxda welcome to the Bristol asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u yeedhayaa xubin ka mid ah xisbiga ucud oo shamis welcome waxaa laga codsanayaa dadka xagga dambe taagan inay fadhiistaan please fadhiista please inay fadhiistaan dadka xagga dambe taagan بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan dadweynaha isugu yimi xafladan caawa sharafta leh ee loo qabanayo Cabdiraxmaan gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha wadani marna marka iyo madax badan oo sharaf leh waxaan ku soo dhaweynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iga raali ahada marka ugu horeeya hadii jir hadalku way isaga kay dardarta laakiin si gadaal baan idinku qoslin doonaaye taa haddaan sii dhaafo kole caawa uguma soo talagelina halkan wax badan ka idhaahdo laakiin se madaxda sharafta le darteed baan ugu soo kacay inaan salaan yaraan ka jeediyo dhammaan horta reer Bristol aad iyo aad baad u mahadsantihiin xafladan sida qaayaha iyo qiimaha leh aad uga soo shaqayseen waanaynu had iyo jeer aynu caado u leenahay inaynu martideena inoo timaado ee sharafta leh si wada jira aynu u soo dhaweyno inagoo aan xisbi iyo qabiil iyo qolato midnaba aan u eegin si wada jirana had iyo jeer si taageera magana waxaan u yeedhayaa qaasim waxaan ahay afhayeenka xisbiga wadaniga UK waxaa sharaf noo ah inaanu maanta aragno intaas oo qof oo u yimid gudoomiyahoodii hadday noqon lahayd dhinacii baarlamaanka iyo hadday noqon lahayd dhinacii xisbigaba dad badanina ay soo galeen xisbiga waanu idin soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan iyo niyad furan baanu idinku soo dhaweynaynaa reer Bristol way mahadsan yihiin sida qiimaha badan ay noo soo dhaweeyeen ay tuseen kalsoonidooda ay tuseen waxaan doonayaa inaan ereyo yaryar halkan ka idhaahdo muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan waddankeeni waynu la soconaa qaabo badan buu soo maray heer axsaab baynu u gudubnay waxaynu noqonay axsaab siyaasadeed baynu noqonay waxaa loo baahan yahay dadku inay ka koraan dhinacii hore aynu wax ku soo maamulano dhinaca gobolaysiga ahaa oo aynu u gudubno dhinaca axsaabta aynu u gudubno oo aynu taa adkaysano ayaa loo baahan yahay waxa kale oo iyaduna muhiim ah inaynu garanno
xisbigu waxa uu dhalaa waxa aynu inagu gelino dhalaa beerta marka aynu inagu abuurno ayay soo baxaysaa oo ay dhalaysaa midhihii aynu doonaynay inaynu ka guranno sidaa awgeed haddii aynu doonayno inaynu midho intaynu god ku ridno aysan weligood soo bixin oo aynu halkooda taagnaadaan iyo haddii aynu doonayno inay soo baxaanba sida aynu u waraabino oo aynu waraabka iyo biyaha ugu badino ayaa xisbigeennu ku hana qaadayaa taasaan shaki ku jirin xisbiga wadani waad la socotaan run ahaan UK marka laga hadlayo iyo gudihii wadankaba waynu la soconaa waa xisbiga ugu dambeeyay axsaabta siyaasadeed ee kusoo birtay saaxadda siyaasadda labada xisbiga kale waynu la soconaa da-dooda yes xubnuhu ha ka tirsadeen axsaab hore ha ka tirsanaadeen dhammaanteenna axsaab hore ayaynu u ahayn taageerayaal u ahayn marka waxaa loo baahan yahay inaynu ogaano in xisbigeennu dardarta uu ku socdaa ay tahay xawaare run ahaan aad iyo aada u sarreeya waxaynu nahay xisbiga maanta ugu curdinsan axsaabta somalilan waxaynuna nahay xisbiga ugu taageerada badan somalilan baynu nahay xaqada dhabta UK marka aan ka hadalno magaalooyinka waaweyn magaalo aynan laan ku lahayn oo uusan xisbigu ka shaqaynayni ma jirto kasoo bilow dhinaca Liverpool kasoo bilow Sheffield Manchester Birmingham Leicester Luton Milton Keynes London oo intaasoo waaxood ah soo gudaba Bristol imow Cardiff and so on Northampton and other places run ahaan aad iyo aad baynu meel walba aynu xubno ugu leenahay laakiin sidii la rabay weli uma shaqaynano waraabkii la rabayna xisbiga ma siinane biyihii waxaad moodaa inaynu aynu tashiilano tuubada aynu si fiican ugu furno xisbiga haddaynu doonayno in midhuhu inoo soo baxaan gudoomiyaha iyo ragga la socda safar dheer bay ku yimaadeen waxay u socdaana waxa weeyaan ugu muhiimsan wadanihii qaranka waa ka qayb oo la socono gudoomiyuhu inuu soo qaaday warqadii aqoonsiga ee deegaanka Sheffield waa la aqoonsaday laakiin gudoomiyaha ayaa soo saxeexay oo ku guuleystay inuu warqadaas oo aqoonsiga gacantiisa ku soo qaado waxaa marka loo baahan yahay inaynu gacmaha isqabsano oo aynu xisbigeena taageerno waxaynu la soconaa codka aynu siino axsaabta siyaasadeed ee jirta ayaynu ku soo baxaynaa xisbigii aynu codkeena siinay ee aynu shalay soo saarnay wuxuu ahaa xisbiga kulmiye ee dadka badankiisu ay run ahaan u ololeynayeen waxaynu u jeednaa maanta kulmiye waxa uu ku kacayo ee dhabta ah baynu u jeednaa waxaynu arkaynaa in maanta ardaydii soo bannaan baxday ee lagu qaalisiiyey fiigii lacagta ahaa lagu qaalisiiyey qaaliga lagaga dhigay in xabad nool lagu riday oo xabada lagu furay baynu arkaynaa waxaynu arkaynaa in maanta iyo shalay maqamida nin maxbuusa oo ka fakaday xabsi ka fakaday maalin cad iyadoo la soo qaban kareeyay in xabad lagu riday ninkaasoo waxa uu sameeyayba tuuga ahayd in ninkii lagu dilo tuuganimo iyadoo oo qaab kale oo loo soo qaban karayay ay jirto xukuumaddii aynu dooranay taasay inoo dhashay waxaan rajaynaynaa ninku waxa uu doortuu dhalaa haddaynu nin dagaal badan dooranno dagaal buu dhalayaa haddaynu nin degan oo wanaagsan oo nabadoona dooranana nabad buu dhalayaa cabdiraxmaan waa ninkii nabadda inoo dhali lahaa aynu dooranno xisbiga wadan inaynu codkeenna siino wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu qaasi mahadsan yahay waxaa baxaya xildhibaan reyte ibraahim jaamac cali reyte oo safar gelaya isaga ayaan yaro siinayaa marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dadka reer Bristol ee sida fiican runtii noo soo dhaweeyey waan u mahadnaqayaa soo dhaweynta ayna soo dhaweeyeen ee qiimaha leh waxaan kale oo ugu mahadnaqayaa kuna sii dhiirigelinayaa sida midaysan ee wadajirka leh
ee ay isugu duuban yihiin waxaan leeyahay haddaad saa isugu duubnaataan dalkiinnii hooyana waxbaa taraysaan halkaad joogtaanna waxbaa ka taransanaysaan kulankani waa kulan communitygii oo dhami ay u dhan yihiin maaha kulan xisbi markaa waxaan doonayaa labada erey aan odhanayo inaan community ahaan idin idhaahdo marka ugu horeysa waxaan jecelahay dad waxaynu joognaa dal ama aada joogtaan oo ku nooshiin runtii anigu halkan eredan dhulkan waa joogi jiray laakiin 10kii sano ee ugu dambeeyey dalkii baan joogay waan qurba joog ka baxay laakiin waan fahmayaa nolosha aad ku nooshihiin iyo waxaa ku sugan tihiin waxaa loo baahan yahay idinkoo dalkiinii niyadda ku haya jecel taageeraya horumarkiisa isla markaa inaad dalkan aada joogtaan sidii aad wax uga noqon lahaydeen uga muuqan lahaydeen oo carruurtiinu wax uga noqon lahaayeen oo mustaqbal hagaagsan uga samaysan lahaayeen inaad ku dadaashaan marka waxaan idiin rajaynayaa caways wanaagsan waxa laygu yidhi xafladdu markay dhimaado waa la ciyaarayaa waan jeclaa inaan ciyaarta ka qayb galo reer Bristol waan salaamayaa waanan u mahadnaqayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan isla garanay haddaanu nahay xisbiga wadani ee magaalada Bristol inaan guddoonsiino xildhibaanada ugu firfircoon golaha deegaanka ee uu ka mid yahay baarlamaanka ee uu ka mid yahay Ibrahim Jaamac Reite isagoo ah xubin aad u firfircoon kana dhiibiya waxyaabaha sharci darrada ah ee dowladda imika xukuumadda dalka haysata ka soo baxa kana dhiibiya ummadda Somaliland ee danyartaana u nasteexeeya waxaan ahay ninkeeda la hadlaya keenidida cabdikariin jaaca gudoomiye ku-xigeenka wadani ee UK kana yimi magaalada Boocame sool ku seegata waxyaabo badan baa halkan laga sheegay oo dawladda caawa halkan lagu dhaliilay anigu mid weyn baan idin sheegaya tan weyn aan idin sheegaya waa maxay waa mid aad u wada ogtihiin aad doonaysaan inaad caawa maqashaan aan jeclaan halkan idiga sheego waxa weeye wadooyin baa la dhisay caalam baa laga sheekeeyey ictiraaf baa laga raadiyey buuhoodla iyo taleex iyo werwer iyo xudurna way maqanta waxaan doonayaa Somaliland oo mid caalamka laga arko waxaan u yeerayaa Faysal Fara Fidiye waxa aan halkan caawa ka salaamayaa dhammaan intii xafladan ka soo qayb gashay waxa kale oo aan halkan ka salaamayaa wafdidan qiimaha iyo qaayaale ee caawa inala joogta magaalada Bristol xisbiga la yiraahdo wadani halbowlahay kaga taala waa magaalada marka UK la eego aad iyo aad xisbiga wadani la oran karo dhaqdhaqaaqiisa dhinac siyaasadeed iyo dhinac isku duubne iyo dhinac dhaqaale waa magaalada koobaad markii la yiri Somaliland waa la ictiraafay waxaan filayay inay Bristol uga horeysay laakiin Sheffield baa halka inaga yara dheeraysay waxaan rajaynayaa inay talabaad noqon doonto magaalada Bristol waxa aan mudnaanshiyaha oo u mahadnaqaya oo hawsha iska leh hoggaanka xisbiga ee magaalada tan Bristol aad iyo aad baan ugu amaanayaa sida hagar la'aanta ee taageerada xisbiga dhinac dhaqaale iyo dhinac siyaasadeed baa uga jira waxaan u yeerayaa xildhibaan
عبد الرحمن محمد جامع عبد الرحمن حوق waxaan aad ugu mahadnaqayaa bulshada Somaliland ee ku dhaqan magaalada Bristol ee sida quruxda badan xafladdan uga soo qayb galay raallina ahaada hadduu waqtigu idinku dheeraado sababtoo annagu waxaanu ka shaqaynaa hadalow maanu ka shaqayn marka hadalkaygu waa iska badan yahay marka dulqaata waxaan kaloo u mahadnaqayaa haweenka iyo hablaha dhalinyarada iyo odayaasha sida fiican u soo qabanqaabiyey xafladdan qiimaha ee qaayana leh jaaliyadda reer Somaliland ee magaalada Bristol maanta waxaanu xidhannahay koofiyadii baarlamaanka maanta ma xidhnin koofiyadii xisbi mucaarada sababtoo ah xafladdu waa xaflad ay isugu yimaadeen reer Somaliland sidaa daraaddeed wixii aanu ka akhriyi jirnay baarlamaanka dib baanu dhiganaynaa kuwa inkastoo saddexda xisbi ay yihiin saddexda xisbi qaran sidaan u nahay saddexda waaxood ee dowladda aanu baarlamaanku uga mid yahay gole qaran baanu nahay golaha wakiilada gole qaran weeye xisbiga kulmiye waa gole qaran waa xisbi qaran wadani waa xisbi qaran uxudna waa xisbi qaran marka haddii xisbiga lasoo qaadana dhib ma laha iyadana waxaan halkan idinka sheegayaa inaanu ka soo kixitinay magaalada Sheffield oo lagu aqoonsaday ama golaheeda deegaanku ay aqoonsadeen gooni sutaagga jamhuuriyadda Somaliland waa golihii u horeeyay ee la doorto marka haddii qof la doorto uu ku aqoonsado waa aqoonsiyuun intuu doonaha leekaadee sababtoo ah wuxuu ku fadhiyaa magac iyo cod dad leeyihiin marka goli ugu horreeyay la doorto halkana oday reer Sheffield ayaan aad ugu mabsuuday oo approachka bottom up ayaynu qaadanay yidhi bottom up kaasaynu ku wadaynaa waxaynu ku wareegaynaa dhammaan councilada ama golayaasha degaan ee Ingiriiska iyo Yurub oo dhan si ay u geeyaan motion ugu geeyaan baarlamaankooda iyo dowladahoodaba oo ay aqoonsiga Somaliland oo halkaa ka dhasho waa ogtiin waxay naga xidhan wax badan baa naga xidhan aqoonsiga ma helo mucaawimaad dawliya oo dowladda ma lihin insurano ma lihin baananku waa muhiim imika waa ogtiinoo lacagteena markaad Jabuuti mariso eed istiraado Maraykan u dir mararka qaar baa la qabsadaa lacagtan xaggee ka timi waxaa laga baqanayaa in lacagta la maydho waxaa laga baqanayaa argagixisada marka waxyaalihii aqoonsigii wuxuu noqday vital wax muhiima inkasta oo dunida saddexaad ama wadamada Afrikaanku oo ay laba arrimoodba ay habaar ku noqdaan waxaa habaar ku noqda khayraadka marka la soo baxo sida Nigeria oo kale petroolka iyo shidaalka waxaa kaloo habaar ku noqda aqoonsiga sababtoo ah nimanka madaxweynayaasha ka intay lacagta boobaan ayay Switzerland dhigtaan lacagtaana waxay ka amaadaan World Bank iyo IMF-ta marka waxaa lagu yeeshaa caruurteenu baa lagu yeeshaa intaas oo kun oo sanadood mararka qaar waxaa soconaysaa war mala aqoonsigu ama hadaasabu ya inaan waxba inaan amahan oo aynan lacag lehna Switzerland la dhigan sababtaa budgetkeeni yaraa ee aynu imika soo urursanay iyo lacagtii yareed ee la yidhi aqoonsiga Somaliland ha lagu taakuleeyo xafladiisa ayaa wax muran ka taagan arkaysaa sidaa daraaddeed waxaad soconaysaa mararka qaar mala amaahaba laydinku qaadan lahaa marka waxaan kaloo idinka codsanayaa waxaad tirahdaan anu Somaliland baa ayaynu idhahnaa fadlan waxaad tirahdaan jamhuuriyadda Somaliland markii la xidhay joornaalkii hubaal sidaasaa loo eegayay maanta waxaa la xidhay haatuf had wanaag waa maqlaysa ummadii waxaanu leenahay si nabadgelya uga hadla oo kolba qofka la hayaa ku eegine u hiiliya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu imikana waxaan u yeedhayaa xildhibaan naasir xaaji cali shire waxaa mahad iyo sharaf iyo karaamays kale
dhammaan dadka reer Bristol ee xafladan qiimaha badan ugu soo dhaweeyay cid kasta oo ka soo qayb gashay soo diyaarinteedii iyo in halkaa la soo gaarsiina hormaadnaqina anigu waxaan doonayaa inaan si kale u dhigo waxaan doonayaa inaan adkeeyo dhiiggiina Soomaalinimada qof kasta waxa uu leeyahay qadiyad iyo fikir uu ku nool yahay wuxuu leeyahay wax uu ku riyoodo waxa uu leeyahay wax uu ku higsado waxaan doonayaa inaan noqono ummad Somaliland la yiraahdo oo la ictiraafsan yahay oo caalamka laga yaqaano oo leh astaamihii dowladnimo oo dhan geed baynu wada beeraynaa biyaan ku wada shubaynaa waxaan rabnaa inuu inoo baxo oo Somaliland la yiraahdo haruna midhaha goosana tusaa maaha waay hadda waxaan doonayaa markaa inaan in yar korkaxaadis waxa la yidhaahdo aan sameeyo oo aan eego Somaliland shalay maanta iyo Brito oo aan isku dayba inaan eegno kolba heerka aynu maraynay waxaan oran karaa haddaan shalay ka bilaabo Somaliland waxay ku taallaa geeska Afrika meel ay ka buuxaan jahawareer xuduudo la isku haysto qaxooti iyo xasarad iyo colaado waxaad arki karaysaa Eritrea iyo Djibouti xad bay isku haystaan ciidamada kala dhex fadhiya waxaad arki karaysaa Eritrea iyo Ethiopia iyagana colaad leed baa ka dhaxaysa waxaad arki karaysaa oo kuu muuqda sida iminka ay u kala go'een Sudan iyo Koonfurta Sudan iyo weli qaybo dhulada isku haystaan iyo qaybaha shacabka lafteeda ay muran badan ka taagan yihiin waxaad arki karaysaa colaadda ka taagan Kenya dhexdeeda Ethiopia iyo Soomaaliya wixii la isku odhan jiray marka hore xuduudaha taariikhiga ee ka dhexeeya intaa markaan isu geeyo waxaad arki karaysaa colaad xuduudeed oo rasmi ah oo meesha ka taagan waxaad arki karaysaa oo kale oo soo ifbaxay oo gobolka geeska Afrika caan ku ahaa colaadii ka dhaxaysay bariga galbeedka maadaama meel istiraatiiji ku taalo ilaa haddana waxay noqotay meesha xudur u noqotay weerarada laga qaadayo argagixisada iyo dhacbadeedka waa meel markaa xudur ah oo u ah istiraatiijiyad caalamiya leh oo ay muran badan ka taagan yihiin waa meel maanta ay ku hardamayaan wadamada carabta iyo dalka Israa'iil waxaad karaysaa arrinta ka dhaxaysa iminka Masar iyo Ethiopia ay dhan ku qosa waxaas waxay ku tusayaan ay muujinayaan runtii in geeska Afrika yahay meel ay xasarad iyo colaad ka taagan yihiin waliba iminkana ay ku soo biireen burcad badeed iyo argagixiso oo la rabo in ciidan badan la keeno qaarab horena ay u joogeen geeska Afrika haddaba iyadoo intaas ay jirto ayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka soo dhex saaray Somaliland geeska Afrika oo nabada oo caalam leh oo shaqeynaysa maana mucjisahay Somaliland markaa waxaan oranayaa markaa midnimadii aan galnay 1960kii waxba kama aynaan faa'iidin waa ta keentay qax badan iyo dhimasho iyo xabaalo wadareedyo meel walba dhulkeena ka taagan innagoo arkayna waxa ayaan markaa isku daynay inaan soo dhicinno xornimadii aan qaadanay 1960kii guushaana waxaynu gaarnay 18 May 1999 ilaa baan maaskale intaas baan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo salaamatu wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh markan waxaan u yeedhayaa gudoomiyaha xisbiga wadamo ee dhaqaalaha Axmed Xuseen Farfagaasho waxaan doonayaa uun wax yar oo dalkii ka jira inaan dii taabto taasina maxay tahay waxa weeye xaalka maanta dadka waddanka ku nool uu marayo waxaa shacabka Somaliland haysta maanta waxyaabo aad u qalafsan waxaa ka mid ah waa shaqaalii waxaa ka mid ah waa sicir barar waxaa ka mid ah waa caafimaad darro waxaa ka mid ah
iskuulladii oo inkastoo la yidhi waa free haddana caruurtii laga qaadaya lacag arrinta tan cashuurta ee dalka lagu soo rogay xildhibaanada qaarkood diideen intoodii badnaa ay u codeeyeen maxay geysatay baa la isweydiiyey horta marka ugu horeysa cashuurtaasi waxay keentay in gaadhigii biyoolaha ahaa iyo gaadhigii iska rogada ahaa iyo gaadhigii maxaan kuu sheegaa baska ahaa mid waliba markii lagu kordhiyo cashuurtii inuu isaguna cashuurtii kordhiyey laakiinse maxay ahayd xaggee ahayd inay dowladdu cashuurteeda saarto oo uga lacag badnaan lahayd waxa uga lacag badnaan lahayd iyadoo qaadka saarta qaadku 80,000 oo doolar 80,000 oo doolar baa maalin kasta ka baxa Hargeysa waxa soo celiyaana ma jiro waa qaad inanka dhalinta iyo ragga xaasaska leh intooda badani goormada sida runta aroortii haddaad u fiirsato goormuu qofkaasi qoslaa u hadlaa markuu nin walba intuu majin yar soo qaatay kalkalada geliyo isbuuro ayuu is yidhaahdaa ayuu qosalka ugu horreeya sameeya horta markaasuu qoslaa inta ka horreysa ilaa uu majintaa xasiliyo ma hadlayo oo nin qosliya maaha reerkiisii kama fekerin carruurtiisii kama fekerin horta taasaa ugu daran dhibaatada uu qaadku ku hayo because baalkii waa really waa drug wey aan ku soo noqdo tii cashuurta maxaa kale cashuurta la saari kari lahaa baakadka sigaara iminka London aad joogtaan dhowr iyo 10 pound baa laydinka siiya soo maha inta laydinka siiya ragga cabba sigaarka 3 shilin buu Hargeysa ka joogaa maaha even uu ka yar yahay 50 pennies uu ka yar yahay cashuurta way saari kari lahaayeen taas lacagta ay halka ka doonayaan gaariga booyada biyaha iyo iska rogada ay ka doonayaan taasa uga badnaan lahayd 2 jibaar 3 jibaar 4 jibaar haddii cashuurta halka mariyaan xagee kala saari lahaayeen iyadan cashuur ka raadin lahaayeen waxay ka raadin lahaayeen cosmetics waxaan dumarku isku qurxiyaan lacag ciidda ka badan ayaa ku baxda waxaa dumarku isku qurxinayaan haddaad dalkii wareegtaa toosh qaadato maanta gabadh maariina ka heli maysid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iminka waxaanu yeedhayaa oo sugaysaan guddoomiyaha baarlamaanka somalilan ahna guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo jaaliyadda somalilan ee magaalada Bristol waxaan ugu mahadnaqayaa kuna bogaadinayaa midnimada ka muuqata waxaan idinku bogaadinayaa Somalilandnimada ka muuqata waxaan hadalkayga ku koobayaa waxaan jecelahay in midnimadaas iyo Somalilandnimadaas iyo dal jacaylkeedii ka muuqda aad halka ka sii wadaan ilaa shataana waxaan isweydiinayaa talo Bristol maxay Somaliland u qaban karaysaa waxaan isleeyahay way hawl yar tahay waxaa qaban karaysaan wixii Sheffield u qabatay sababtaas maaha waxaad tihiin jaaliyad midaysan oo xoog leh baad tihiin waxaad tihiin jaaliyad Yurub joogta oo weliba ay soo dhowdahay waqti doorasho adduunku maanta waa give and take waxba la kala iibsadaa halkan waxaa maanta taagnaa musharaxiin badan oo codadii ka doonayay waxaa taagnaa gabadh golaha deegaan ku jirta oo reer Somaliland ah taladeedii ay soo jeedisayna wax badan ka qaata oo haylaawina waxaan idin rajaynayaa inaad labaysaan Sheffield haddii Ilaahay ka dhigo wadani waa xisbi qaran waa xisbi mucaarida mararka qaarkood malaashaki baa la gelin jiray inuu mucaarid yahay
laakiin hadda wuu cad yahay soo maaha inkastuu xisbi mucaarida yahay siyaasiyan xisbiga mucaaridka ah ee waddani wuxuu xukuumadda ku taageerayaa wixii wanaag ah ama horumar ah ee ay samayso wixii dhaliilaana si cad ayuu u tilmaamayaa haddii ilaahay ka dhigo walaalayaal gobolka somaliland ugu durugsani ee bari ugu xigaa waa sanaag waa gobolka ugu dhulka weyn leh somaliland waxaa laga yaabaa qolada juqraafiga taqaanaa malaa u taqaanee 8% baa lagu tilmaamaa inuu yahay dhulka somaliland gobolkaasi wuu ka goodan yahay somaliland waa godoon waxaa beryahanba la hadal hayay in waddo weyn loo sameeyo waddada xisbiga waddani wuxuu ahaa xisbigii ugu horreeyey ee qaadhaan ku bixiyay waddada haddana wuu taageersan yahay waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan shacbiga reer somaliland gaar ahaan taageerayaasha xisbiga waddani inay kaalin xoog leh ka qaataan waddada taageeradeeda iyo mashaariicda kale ee horumarka ee somaliland dhammaantood waxaa saxaafadda kala socotay dhowaan in lagu dhawaaqay in la sameynayo diiwaangelinta codbixiyayaasha mashruucaasi waa mashruuc muhiim ah oo somaliland muhiim u ah waxaa ka warqabteen doorashadii ugu dambeysay ee aynu ku gallay bilaa diiwaangelin wixii dhibaatay naga soo gaadhay doorashada miyay ku gallaa bilaa diiwaangelin waxaa la bilaabayaa sida guddigu sheegay bisha 9 haddii ilaahay ka dhigo waxaanay sheegeen guddidu inay ku dhammaynayaan muddo 6 bilood ah ama ka yar waxaa ku xiga doorasho waxaan rajeynayaa in doorashada si inoogu dhacdo si nabadgelyo ah sidii kuwii horeba inoogu dhaceen anigoo mahadnaqaya mar labaad waxaan jecelahay hadalkayga inaan kusoo gunaanado inaan si cad u cambaareeyo xadhigga wargeyska haatuf waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda in wargeyska xorriyaddiisa loo soo celiyo haddii dembi loo hayo waxaanu jecelahay in maxkamadda soo taago aada iyo aad baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane xildhibaan naasir xaaji cali shire mudane xildhibaan cabdiraxmaan maxamed jaamac awxoog mudane axmed xuseen fagfagaash shahaada ugu dambaysa waxaan mutaystay oo aan guddoonsiinayaa laanta koowaad ee xisbiga waddani ee UK ee Bristol waxaan aad ugu hambalyaynayaa dadkii xafladan wanaagsan soo qabanqaabiyey ee reer Bristol sida fiican ay u soo qabanqaabiyeen meesha fiican ay ku qabteen waxaan kaloo halkan aad ugu hambalyaynayaa dadka ka soo qayb galay ee taageersan xisbigan waddani waxaan insha Allah ugu baryaynaa inuu ku guuleysto xukunka doorashada dambe soo socota wassalaamu calaykum